محمد عوال الليبان مقدشو أيو سوقلي أسقون نيرة وحوها دربي جيف تاريخ قريسة تيفيغا بونلان ورئيسي وننكبحيي أيان كسو حقن أرنتاس وحكلون كسو حقني بوغا قرن أو تاريخ الصومالي قرن سيدا Dictionary of Somali History and Leaders أو قرن ليرا محا حاج سيدا أنا مسانها مقعد أنا قلت بس available لهلي كرو تليانيغا waxa uu urursan jiray ilmaha darbijiifka iyo kuwa agoonta wuxuuna gey jiray iskuulada la yiraahdo missionary schools waa iskuulka ama meeshii lagu barayay in la gaaleeyo ilmaha lana baro say wax u gaaleyn lahaayeen waxay la mid tahay Catholic religion marka la yiraahdo sida dugsi quraanka oo kaleeto kaliya maaha in lagu barayo diintii waxaad also practice garaynaysaa waxaad samaynaysaa in aad practice samaysid practice means in aad u sujuudid mactabkii inaad dhunkatid inaad samaysid waxa la dhaho trilogy oo macnaha 3 in 1 aad macnaha ku samaysid saddexdii halka haba ahayd iyo caabiditaankii kaleeto practice ko dhan inaad samaysid محمد عوال الليبان wuxuu ka soo baxay dugsigaas markuu ka soo baxay dugsigaas wuxuu fluent ku noqday luqadda Talyaaniga shaqadii ugu horeysay markii Talyaaniga sameeyeen ay sameeyay jireen meeshaas wuxuu ka ahaa kabalyeeri inuu geeyo khamriga inuu adeego ayaga inuu ka shaqeeyo shaqadiisa halkaas ah maaha waxaan abuuranayno waa wax qoran oo taariikhda ku qoran Barsavoy markii uu muddo joogay oo loo bogay ninkan shaqadiisa Talyaanigu u bogay waxa loo qaatay xog hayn inuu u noqdo xafiiskii Talyaaniga uu ka maamulayay gumaysigii Soomaaliya sida daraadeed wuxuu qayb ka ahaa wuxuu caawinayay xasuuqayaashii dalka iyo dadka Soomaaliya waa taariikh qoran taariikhana aniga sameeyay maaha Secretary of the Colonial Generals wuxuu ahaa xog hayn generaaladii gumaysiga waday dadkii dilayay dalka sida ninka la yiraahdo Garasiyaan oo kale taqaanaan oo daldalay ma dilin xataa uu daldalay boqolaal kun oo Soomaaliya markii dagaalkii labada adduunku soo xogeystay ee laga guuleystay Talyaaniga ee Talyaanigii uu baxay ee Ingiriisku uu la wareegay dhammaan Soomaaliya waxa haddana uu xoogay inuu noqday generaalkii deganaa gaalkacyo ee Ingiriiska ahaa ee la wareegay qaybta Soomaaliya qaybtan dhinacan Soomaalida taariikhdiisu marka waxa ay tahay inuu ka soo shaqeeyay baarkaas laba marna uu xooghayn u ahaa caawinayay dadkii gumaysanayay wadankeena waxa taqaanaan ama aad fahamsantiin hadda Soomaalitiin shakhsiga lagu aamino shaqada noocaasa inuu gacan yaro u noqdo jarnaalkii ama dadkii ama xafiiskii waday gumaysigii iyo xasuuqii wadankeena ee la rabay in la ogaado yaa gaarsiinaya Soomaaliya dawladnimo waxa ku dooday Ingiriiska iyo Talyaaniga ku loolamay Ingiriiska iyo Talyaaniga markay ku loolameen waxa garab istaagay Talyaaniga 7 xisbi oo Talyaanigu uu fangareeyay samaystay oo la dhigi jiray ururka shaqada iyo shaqaalaha محمد عوال الليبان ورئيسكيسي uu bixiyay 1983 ayuu ku sheegay asaga wuxuu leeyahay toddobadaas xisbi waxa fangareynayay lacagta siinayay iibsaday Talyaaniga Israelna waxay ka heli jirtay waxa kaliya oo dhaqaale soo gala maamooyinka ganacsada iyo odayaasha iyo dadka Soomaalida haddii xaqiiqdu marka ay sidaas ahay محمد عوال الليبان sida taariikhda ku qoran uu ahaa nin u dooda ama ay soo saarteen ururka shaqada iyo shaqaalaha محمد عوال الليبان oo hor kacaya ama leader ururka shaqada iyo shaqaalaha waxay u ololeeyeen waxay rabeen ku kalsoonaayeen in 30 sano Talyaanigu uu Soomaaliya si haysto waxay aaminsanaayeen oo Talyaanigu uu ka dhaadhiciyay in Soomaaliya dawladnimo loogu diyaari karo 30 sano 10 sano aysan macquul ahayn halka SYL ay ku doodaysay in 10 sano lagu diyaariyo dawladnimo Soomaaliya gacanta loo geliyo
oo 10 sano uu ku diyaariyo gumaysiga Ingiriiska sababta ay taas ka wadana waxay ahayd haddii la qaada lahaa fikirkaas waa fikir uu horboodayay Cabdullaahi Ciise iyo rag la midihii Soomaaliya dhammaanteed maanta shanta Soomaaliya waxay noqonaysaa hal xabo way kulligeed Ingiriiska gacanta ugu jirtay halka Cawaale Maxamed Cawaale Liibaan iyo raggiisu ay ku doodayeen Soomaaliya in la gaarsiiyo xornimo ama dawladnimo 30 sano kadib waxayna ahayd dantii Talyaaniga saad ogtihiin waxa lagu dilay waqtiga isaga waxa la dilay ninkii safiirkii Egypt Masar u joogay Soomaaliya oo runtii Talyaaniga ku qasbayay ama fiirinayay in Soomaaliya xornimada la gaarsiiyo raggii dilay waxay ahaayeen rag ka tirsan ururka shaqada iyo shaqaalaha ninkii midida gali in Soomaaliya oo ka soo horjeeday in Soomaaliya 10 sano xornimo lagu gaarsiiyo balse rabay Soomaaliya in Talyaaniga loo daayo in Talyaanigu soo dirsado maadaama Maxamed Cawaale Liibaan uu taageero fikirka noocaasa hormuudna uu ahaa Talyaanigu waxa uu ku abaalmariyay in loo ogolaado sheegashada calanka maantay aan haysan taariikhda rasmiga ah waa midaas taariikhda xaqiiqda ah waa midaas waxaa jirta taariikh fara badan oo aan hayno oo ku saabsan dad fara badan oo maanta taariikhdu ay u sheegto si fiican inaysan ahayn taariikhdaas haddaan reer tala ku nool lahay waxaan qaadanaa go'aan ah inaanan sheegin waayo waxaan u aragnay sheegitaankeedu wax dana oo ugu jirta qaranka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inaysan jirin balse inay dhaawici karto ama ay niyadda ka xumayn karto shakhsiyaad Soomaaliyeed oo maantay dadkooda ku dhex jira oo islaam waxaan rabaa marka taariikhdu inay sidaa u caddaato in dadku ay ogaadaan waay Maxamed Cawaale maxaa loo siiyay shaqadii iyo taageeradii uu siiyay gumaysiga Talyaaniga iyo shaqadii dheeradu u soo qabtay intii gumaystu wax suuqay taariikhdu waxay qortaa inuu ahaa nin academic ma ahayn taariikhdu waxay qortaa inuu ahaa halgame ma ahayn labadaba ma ahayn taariikhda ayaa u diidaysa aniga ma qorin taariikhda ma aan noolay waqtiga isaga waxaan baaritaan ku sameynay waxaan soo ogaanay xaqiiqdu inay sidaas tahay waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaago hal su'aal haddii walaashayda ama walaalkayga islaamka ah aad fahamsan tahay garatay ayna ku caddaha maantay calanka aan haysano inuusan ahayn calan annaga aan samaysanay ay caddahay shaki uusan ku jirin isla markaasna ay caddahay inuusan naga turjumin wax Soomaalinimo islaamnimo dhaqankeeni taariikhdeeni uusan ka turjumin haddana aad ogtahay in uu yahay calaamado diineed oo anagu aan laanahay ku jirto anaguna islaam aan nahay nala amray inaan gaalada calaamadahooda iyo dhaqankooda aan khilaafno sabab calankaas aan ku haysanahay ma jirto wadana wuxuu horumar gaaraa dawladdu waxay fiicnaataa waxa la hormaraa oo technology-ga lagu hormaraa marka dawladdu ama wadanku uu diyaar u yahay inuu sameeyo renovation guri markuu duqoobo dib baa loo habeeyaa wax walba waa la cusboonaysiyaa caalamka technology-gu 24 saac isbedesha maalintaan anigu dhashay iyo maanta isku mid maaha maalintaan dhashay iska dhaaf aaladan aan kala hadlayay wax u dhow ma jiro baabuurka markaan arko ayaan la yaabi jiray maantana waxaan awood u leeyahay anigoo fadhiyo gurigayga ama xafiiskayga inaan la hadlo malaayiin qof haddii aan ku dheganaano marka oon dhahno calankan inaa wajadnaa aabaa'ana in factina aabayaasheen uusan ahayn gaalo Talyaani ay ahay waxaan dhaawacaynaa qarankeena iyo wadankeena waxaanan u diidaynaa inaan horumarno waxaan rabaa inaan ku daro hal xabo kaleeto oo ah waay mucaaradka badan Sufyaan Sheekh Axmed maxaa loo mucaaraday calanka waa garanay laakiin intaan calanku soo bixin waxaa jira mucaarad fara badan oo ku saabsan in lagu mucaarado xaasaska waxaan rabaa in hal xabo aad fahantaan looma ogolo wadanka Soomaaliya in uu koro macnaha shacabka Soomaaliyeed inuu koro looma ogolo waa siyaasad waaqici ah oo degsan oo loogu talagalay xitaa haddii aad maanta tahay macnaha maanta waxa la yiraahdaa 12 milyan aan nahay we are not 12 millions we are not
ma nihin 12 milyan waa ka badan laakiin inaad sheegato xataa laguma ogola xataa dowladdaadu inay sheegato looma ogola waayo waxaa la rabaa in la jideeyo inaad tahay minority sidaa daraaddeedna la qaato dhulkaaga iyo waddankaaga iyo xeebahaaga dowladaha qaarkood waxay ku doodayaan ama waddamada qaarkood waxay ku doodayaan ayagoo ah 12 milyan ama 8 milyan sida ay dadka qaarkood dowladaha qaarkood yiraahdaan inay dhulka intaa leeg haystaan macquul ma waxaan rabaa marka inaan walaalahayga shacabka Soomaaliyeed aan weydiiyo khaasatan gabdhaha isoo weeraray oo la raggeed nagu dirtay inaan u sheego walaalayaal arrintu saad u malaynaysan ma taagna nin lagugu diray iyo masayr waxay taagan tahay badbaadada masiirka qaranka Soomaaliyeed wallaahi haddaanan korin haddaanan awood yeelan haddaanan horumar samaynin waddankaas aan ugu yeerno Soomaaliya inaan leenahay wuxuu noqonayaa waddan dad kale leeyahay aniga waxaan ogahay wax badan oo dadka Soomaaliyeed aysan ogeyn aysan ku baraarugsaneyn waxaan ka soo shaqeeyay wax ka soo qabtay la soo shaqeeyay la isoo baray sida waddan loo burburiyo sida populationka waddankaas loo yareeyo waxaan idin sheegayaa qiso yar waddan ka mid ah waddamadaas Baltiga ayaa waxaa dhacday in dowladdu ay qaadi weysay xanuunkii dadka qaadanayay social security waxa la yiraahdo ama retirement lacagta dadka weyn la siiyo waddankaasi waa Belarusia waxay la heshiisay company Mareykan ku yaala ee soo saara sigaarka waddanka sigaarka aad looga caba waxay ku heshiiyeen inuu ku soo daro nicotine khatar ah oo sababka markiiba dila dadka waaweyn ay u dhima karaan waa lagu soo daray hal sano gudaheed dowladda waxay save garaysay lacag bilaayin dollar inay dilaan dadkaas waxaa jira marka wax la dhaho social engineering in la engineer gareeyo meesha sida guri loo dhisaa bulshadana xaqiiqdu waxay tahay marka gabadha Soomaaliyeed u heli diintaada u heli dalkaaga u heli danta iyo diinta islaamka ogolow in ninkaagu uu kula guursado ogolow in aad koriso ama aad soo badiso shacabka Soomaaliyeed tiradooda ogolow inaan noqoto gabar islaama oo ku faanta waddankeeda laakiin aan ku faanin leylama guursan karo gaalka iyo gaala jireenku ma ogola inaan badano waa ka xun yihiin waad aragteen dadka iga soo horjeeda oo dumarka ah waa dumar caariyaada waa naga qaawan waa dad xataa diintooda aan la ogeyn waxay tahay sababta ay saas u tahana waxay tahay because of dadkaasi waxay xambaarsan fikirkii wada lagu shaqaysanaa waxaan rabaa marka meesha ugu dambaysa inaan ku daro hal shay dhawaan waxaa la sameeyay account badan oo Facebook iyo all the social media oo lagu sameeyay magaca ama tala ku nool ama aniga magacayga shakhsiyan Sufyaan Sheekh Axmed waxaan rabaa marka wax walba aad ku aragtaan Facebooka ha isdhehnina Sufyaan soo diray waa maasantiin shacabkayga Soomaaliyeed waa jeclahay wali waxaan sugaynaa cadeymihii dadkii aniga iga soo horjeeda ay keeni lahaayeen ilaa haddana maaya waxaan rabaa marka inaan ka socono arrintaas annagu waxaan wadaynaa shaqada aan hayno shacabka Soomaaliya qarankeena oo ah in aan saxno dhaqamada iyo taariikhaha Soomaaliya ee Talyaaniga uu qalday ee la qariyay waxaan rabnaa inaan bedelo calanka iyo astaanta qaranka wax weyn ma diinna ma waa la bedeli karaa waxaana ceeb nagu ammaantay waxaa sharaf darro ah waxaa wax laga xumaadaa kadib markaad ogaatay in lagu siray inaad weli intaad hambariirsato sii taagnaatid meeshii waa wax sharaf darro ah inaa wajadnaa aabaa'anaa xujo maaha caqli maaha dood ma aha haddii aabbaha wax qaldan lagu siray amaba uusan ahayn sidaad adigu u malaynayso inuu ahaa uusan ahayn geesi uusan ahayn waddani
uu ahaa mid u shaqeeya kii adiga yimid inuu ku gumaysto khayraadka qaato laguna abaalmariyo taariikhdaadii inaad maantay sii hogato oo tiraahdo calankaan rabaa wax fiican ma waan islaamaya walaalayaal kooxda talo ku nool iyo anugu waxaan ka mahad celinaynaa taageerada faraha badan ee naga soo gaartay shacabka Soomaaliyeed waxaan si khaas ah anugu si fiican u mahad celinayaa dadka i taageeray oo difaac cirdigayga iyo sharaftayda aad iyo aad ba u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh